gudoomiyaha gobolka Togdheer Mudane Xamsan Maxamed Cabdi iyo sidoo kale duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ay weerinayaan gudoomiyaha hay'adda kaydka raashinka iyo sidoo kale aafooyinka dabiiciga ah Faysal Cali Sheekh ayaa si wada jira xariga uga jaray xafiiska ay gobolada bari ku yeelan doonto hay'adda kaydka raashinka qaranka ee Soomaaliland xariga jarkani kadib waxa si wada jira warfeediyaanada ula hadlay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen barasabka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco gudoomiyaha hay'adda kaydka raashinka iyo aafooyinka dabiiciga ah Faysal Cali Sheekh waxayna faahfaahin dheer ka bixiyeen sida uu shaqeyn doono xafiiskani waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan dhismahan oo runtii wax badan ka tari doona baahiyaadka asaasiga ah ee gobolku uu qabo in maaragtay laga daryeelo ama laga waraabiyo dadka nugul maaragtay abaaraha dadka baarakacayaasha dadka IDPs-ka oo runtii waqti xaadirkan u baahan in si mug leh wax loogu qabto waxaan kala jecelahay inaan halkan ka codsado hay'adahan dhisay UNDP ee xafiiskan dhisay haddii ay suurtagaltay istoodhadii waaweynaa ee la dhigi lahaa raashinka oo runtii ku wanaagsan xafiiska iyo istoorku inay isu dhowaadaan inay iyagana dee halkan meesha dhinaceeda ay ka dhisaan haddii ay suurtagaltay halkan maanta waxaanu kala soo qayb galnay furitaanka xafiiskan markii horena hay-adda neerad buu ahaa maanta hadda uu kasii ballaadhay oo cilmi baadhistii deegaanka iyo dhibaatooyinka iyo aafooyinka dabiiciga ka hortagistooda shay aad iyo aad muhiim u ah horena daahir iyo hay-adda wala shaqayn jirnay kadib ahaan iyo ka gobol ahaanba dee maantana waanu u faydanahay in la shaqeyno runtii annaga farxad weyn bay noo tahay in xafiiska gobolka Togdheer ee hay'adda Netford oo ah hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka inuu noqdo xafiiskii horeeyay ee aan ka furo magaalada Burco inuu noqdo aad iyo aad bay runtii farxad weyn noogu tahay ka hay'adahan runtii waxa noo qorshaysan in ay xarun u noqoto Burco kaydka gobolada bariga oo dhan inaanu halkan haddii Ilaahay yiraahdo aanu ka sameeyno qoraaladii iyo dokumentigina waan u soo gudbinay barasaabka iyo meeyarka waan u soo gudbinay waana naga aqbaleen aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa meeyarka oo runtii dhismahan suurtageliyay inuu dhulka runtii u bixiyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu rajaynaynaa hawsha ballaaran gobolka Togdheer runtii waa gobol aad iyo aad u qiimo leh goboladu ballaaran gobol nugulo amar walba abaaraha iyo dhibaatooyinka runtii soo noqnoqonaya sanadihii u dambeeyay oo u badnaa gobolka Togdheer Sool Sanaag iyo Saraar iyo ay u badnayd runtii waxaanu jecelahay in aanu si weyn oo mug leh haddii Ilaahay yiraahdo aanu uga shaqeyno waa Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.